dhulka Soomaali galbeed intii aad joogtay amaba intii kugu maqaala ah amxaarada intay xukunka haysay ama Tigreega intuu xukunka hayay dhacdooyinkii dhacay ee xanuunka lahaa kuwee kugu darnaa walaalaha waxaa ugu darnaa tusaale ahaan gabadh maalinta ciidamada Tigreegu waxay u yimaadeen iyo kuwan caloosha shaqaystayaasha ah waxay u yimaadeen meel tuulaha waxay u yimaadeen maqaaxi ka shidan gabadh dad bay isu soo ururiyeen maqaaxi markay yimaadeen dadkii isu soo ururiyeen waxaa dadka dhex taagnayd gabadh yar oo 2 dhal ama 3 dhal ah oo kolka umula ilmo yar laabta ku haysata markaas waxay ku dhaheen dadkii markay dad badan oo macquul laayeen yay gabaraan gabadhii inay kufsato gabadhiina way diiday sababtay ku tiri xoog markay ay isku dayeen inay ku heliyaan gabadhii ay arkeen in arrinta ay aqbali karin marna yaa waxa amar uu ku bixiyay ninkii ciidanka ay gabadha in la toogto gabadhii u yimaadeen ilmihii yaraa ay haysteen gabadhina waxaa la oran karaa kolka waxay jirtay ilmaha yar ay haysatay 3 bilood baa la oran karaa yaa waxay ku dhawaan lagu tooganayaa ilmaha dhaarsi gabadhiina inta ilmihii dhaarsiisay badanada ka dhunkatay halka ilmaheedii dhigatay 3 bilood madax kaga dhufteen qasiir arrintii ila adkayd ee gobolka ka dhacday ee degahaygu ay maqlaan ee marna ilooben arrintaas waana arrin jirto xaqaa'iq oo dadka gobolka u dhashay intooda badan ay hadda maanta og yihiin waxaa kaloo qisadii ila dareed ay ahayd ninka askariga ee new booliska oo 45 gabdhood hal sana ay u wada dhaleen oo ureeyay 45 gabdhood ayuu ureeyay 30 gabdhood isku gobol yihiin 15 gabdhood isku gobol yihiin buu hal mara oo xaraana ureeyay ay dawladii arkayso oo maamulkii arkayaan oo shacbigii arkayaan waa la soo qabtay kuwa maamulka caloosha shaqaystayaasha waxa la wardadku dhaqan bay lahaayeen oo islaam bay lahaayeen Soomaali bay lahaayeen arrintani dasay u dhici kartaa waa yeeray markii la soo yeeray la yiri maartay maxaa sameynaa oo ay dabcan nimanka Tigreega markii arrintii ay arkeen arrin fashilan tahay ay isweydiiyeen yaa inta soo kaxayeen gobolka u bedeleen ilaa hadda maanta ninkii waa nin sargaala oo dadka hortaagan oo dadku yaqaanaan 9 gobol waa laga ogyahay arrinta waana arrinta ilaa hadda qarsoon ay dadku shacbigii ay la taagan saxaafadna wali ayna ka hadlin 45 gabdhood baa u urtay hal nina goorma way markaa waa 2015 hadda ya arrintaasi dhacday 2015 2015 dhacday arrintaasi hadda jeelal waaweyn baa ku yaala ee dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato oo jeel ogaadeen uu kamid yahay marka jeelasha laga sheekaynayo waxyaabihii kuugu xumaa ee lagu sheegay maxaa kamid ah waxyaabihii ugu xumaa waxaa kamid ah ninka saldhigga ciidanka haysan jiray laga bilaabo 2010 ilaa 2015 intii u dhaxaysay ninkii haysay saldhigga jeelka weyn ee jeelgaadeen la dhaho ee jijiyo ku yaala yaa nin baa iga sheekeeyay askarta kamid ah oo ka soo baxsaday waliba askarta jeelka kamid ah jiray oo ka soo go'say hadda South Africa nala jooga laakiin hadda ayaanta meel ku maqan yahay aanan ogeyn maalin sheekaysanayni buu noogu soo daray nooga sheekeeyay wuxuu yiri mayna dhicin buu habeenkii markay fiidkii taabo baxayaa buu yiri wuxuu oranayaa buu yiri hala soo qado baabuur budri kalkii dadka la soo xareeyo oo wuxuu oranayaa dadka yaa dukaamada soo qalateen yaa se gabdhaha walaalaas oo taageeraya buu yiri wuxuu taageeraya buu gabdhaha badan inta gabdhaha gabdhaha ma yaa buu ka soo dhanaya 3 gabdhood soo saar waa loo soo saari 3 gabdhood buu ku sanaya buu askarta dhan ay meesha joogto iyo dawladdu ninna kala hadlayso buu waana wax lagu ogyahay buu gabdhaha jeelka ku kubsado waxaan sameynaya buu yaa hanti ku soo qabateen ama yaa hanti lahaa oo ganacsatay kamid ah dadka soo qabateen qofkaas la oranaya waa baxaya gurigiisa tagaya waa baaranaya qismadihii iyo lacagtii oo dhan baabuur lagu raranayo guryaha la geysanayo lagu qaybinaya waxa la oranayaa waa loo magac bixinaya oo magacaas aan ku soo qabanay la dhahay hantida la qaybsanaya dadka wuxuu yiri labada qiso ilaadka jeelka wixii ka dhacay marka laga reebo hal arrin oo caado waa kullayda nimankan wadanka haysta Tigreega dadka oo la dabo ama la marjiyo shacabka adduunka nimanka Tigreega ay anigu intaan horta kullayda caqli nimanka Tigreega ma raadi waa ka caado u tahay qof bilaadana intii adoo xabad ku dhufan kara inta soo qabto shan qof inaan dad gacmihi cagaa ka dhaafeen tababar marka wuxuu yiri wuxuu sameyn jiray barkada ku taala meesha jeelka agtiisa biyo qabow ku jira markii dadka la soo qabto ruuxii waxay ay u arkaan inay ama dadnimo ku jirto ama yiraahdo nimanka deedan ma qadan xaasida lagu galayaa biyaha tacaawud sida loo muqursin loo garaacay iyo qofkii nafta kaga baxaysa waxa laga yaabaa qof dadka qofka noocaas ah familigiisii muddo 2 sano ama 1 sano ugu yaraa inay cuntada laga qaado ay cuntada banaanka keenaan oo qofkiina uu dhintay waqti aad u horeysa oo cuntada inta laga qaado cuntada ay la iska cuno qofkiina uu dhintay 1 sano ka hor ama 2 sano ka hor cuntadiina askartan iyagu ay iska cunaan ku qoslaan anaga ogeynayna keenay baa uu iska tago cuntadiina ay iyagu iska cunaan maxaa la qofkiina uu dhintay oo laba arrimood qofkii dadkii ehelka
ay weliba isugu darsanaato iyadii oo meelaya qofkoodii inuu xiran yahay oo intaa kharash gareeyo oo waqti uu kaga dhumayo oo qofkoodii intaa iyo intaa raadinaya iyo already qofkoodii oo dhinta waqti aada u horeysa labada arrimoodna way kasii arrimahaas oo dhan waa arrimo jeelka ka jira ninka arrintaas samaynaya Soomaali weeye laakiin waxaa arrintaa ninka ku qasbaya oo la jooga oo daba taagan oo arrintaa qayb kala ah sargaalkiisa Tigreega ee gobolka joogta yaa mar walba arrintaa ku ah madaxweynaha samayn jiray dadku waa ogyihiin madaxweynaha samayn jiray waqtiga hoggaanka nabadgelyada samayn jiray hadduu sameeyaa isagu naaw waqti xaaligu sameeya oo uu sameynaya arrintaa waa wada sameeyaa kulligood waa caado ay leeyihiin laakiin nin walba taagiisa ninka Tigreega la shaqeeya arrintaa ku daba taagan kuna qasbaya hantida qofka ganacsatada intii hantidiisa la dhaco oo xawaaradaha la dhaco oo bangiyada la dhaco yaa waxaa la odhanayaa waxaas askar ah magac lagu qoraya magac loo samaynaya waxaa weeye markaa dadkaasi waxaan leeyahay dadku cid kastoo dadkaasa oo inaqasha war dhibaatada intaa la eg dadkii idinku hayay hadday maanta darada foorariyeen oo sii dhimanayaan waxaad u dhowrataan ma jiro marka walaalow waxaan jeclahay insha allah arrintu anigu kolley sidaas ila muuqataa hal gabay oo yar baana rabaa insha allah inaan sii raaciyo hadduu ilaahay yidhaahdo taalibaan yahuudiya intay gaala daba joogto dawladay kashmiir yeelatana deli ku taamayso dalku gelista shiishaan intuu diidan yahay ruushku dadweynaha intaa reer ciraaq badinka loo qoori falastiin dabaabaad intaa laga dulgowriishay ee waagii bilaacada kuruus lagu duqaynaayo durdurada dhulkeennana intay xabashi doonayso ducaadii iyo musheekhdii intay gaala wada dooni ee durbaanka loo tumi yuhuud dunida aafaysay duulaan xaqiiqaa jiriyo dad iyo baaruude islaamkaa ducsiga qaadan iyo damacii beenowye diintii ilaahay iyo xaqii daahir laga yeeliye daliilkii rasuulka iyo sunnuhu malaha duugowe ku biirsada waxay doonayeen laysu dacareeyo saasaan dhihi lahaa walaala gabayadana insha allah waan